I want to thank everyone for coming, especially the vendors for bringing your services and resources to where the community is at. Somali Health Board have always been connecting our friends and partners in the system to the community. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Somali Bridge TV. Waxaan ku sugannahay bandhiga 11aad oo ay qabato Somali Health Board sanad walba. Sanadkan waxaa lagu qabtay Sullivan Center oo runtii ah halbowlaha magaalada Takwila. Waxaa garabkayga taagan agaasimo ku-xigeenka hay'adda Somali Health Board Maxamed Xasan Shidane. Maxamed ku soo dhawo Somali Bridge TV. Cabdiraxmaan waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay walaalkay. ما شاء الله maxaad noogu sheegi kartaa bandhiga 11aad ee sanadkan ay qabatay Somali Health Board wax badan horta aad baan ugu mahad celinayaa mataqaana channelka Somali Bridge oo markasta qormada taariikhda fiican ee Soomaalida ka shaqeysa sanadkani wuxuu kaga duwan yahay sanadii hore waa sanadkii labaad inta covid-kii mataqaana dadkii la kala xanibay la isku furay oo dad badan ba isku soo baxay waxa u dooranay degmada Takwila oo halbowlihii Soomaalida ah ganacsiyada noogu yaalaan oo dadka nagi degan yihiin mataqaana masaajidkan uu ku yaalo sanadii la soo dhaaf waxa ogeed markay guryaha kor u kacaan qarashaadka macnaha property value kor u kaco Soomaalida waa dad ugu horeysa ee la saaro laga push gareeyo meelihii hore deganayeen marka Takwila maadaama ku badanaa waxaan markasta isku dayaa inaan keeno adeegyadan meesha dadka nagu u badan yihiin aad ma hasantaa shidana waxaan arkayay hay'ado fara badan runtii oo sanadka lagu martiqaaday bal ka waran maxaad nooga sheegi kartaa hay'adahaas iyo waxay ka dhigan tahay bulshadeena waxay uga dhigan tahay hay'ado noocaasa inay yimaadaan oo markaas ay adeegyada noocan ay u soo fidiyaan bulshadeena sax aha horta meesha waxa imaado dhan waa saaxiibadana shaqada caafimaad ba u badnaadaan laakiin waxaan kaloo had iyo jeer Somali Health Board ku dadaalna inaan isku xirno meelaha kale ee bulshada muhiimka u ah tusaale ahaan waxaana la joogta King County for registration macnaha dadka diiwaan geliya cod bixiyaasha codkan ognahay muhiimadu u leeyahay in wax ka bedelno shuruucdana la ku maamulo meesha aan deganahay waxa kaloo keenay mataqaana hawlihii baaritaanadii sida hepatitis-ka ama cagaarshowga la yiraahdo mammography baska mataqaana dumarka kansarka naasaha si fiican looga baaro waxa kaloo nala jooga dawladda King County Public Health oo iyadana dadka Soomaalida dhaqankeeda kala leh waxaanu la soo degnaa oo dibadda ka keensanaa maacuun badan oo isticmaalo sida waxa kamid ah birta canjeerada kamid ah iyo dugsiyada waxyaalahaas waxa lagu maadaama wadamo kale lagu sameeyo lama baarin waxa laga sameeyo marka waxa ku jirta aalada sunta ay la yiraahdo leadka marka county-ga waxay maanta u joogaan in dadkii alaabta keensadeen in loo baaro leedka dhibaatada uu leeyahay waxa waaye xataa ilmaha yar dhasha haddii mataqaana si macnaha shil xataa uu cuno wuxuu ka hor istaagaa korriinka maskaxdooda developmental delays uu keenaa waxaana waa wax muddo badan dadka madowga iyo laga badan yahay ku soo dhex jireen laakiin hadda ay u malaysa in dadku ku soo baraarugayaan suntaas sidii la isaga ilaalin lahaa dhibaatadeeda iyo adeegyo kale badan aad way jiraan mataqaana baaritaanadii iyo isdiiwaangelinta caymiska caafimaadka adeegyo aad u tiro badan ugu yaraan 36 hay-adood oo kale oo adeeg bixiyaal ayaa isugu midmaantay bandhigan adeega bandhiga caafimaadka sanad walba sanadka ka dambeeya wuu sii kordhaa runtii adeegyada aad sanadka ku soo kordhiseen maxaa kamid ah adeegyo tiro badan wuxuu u sii kordhaana waxa waaye dadku waxay anagu waxaan waxa grassroots ka dhiga Somali Health Board adeegga waxa waaye dadka aan u adeegnay dadka naga ah dadku u adeega ma ahan dad looga turjumayo ma ahan waa caruurtoodii waa gabdhahoodii oo haddana heerka aqoonta iyo ka dhisan mataqaana tababarka intaba kuwii kale ugu tagi jireen intaa waxaa sii dheer saaxiibada kale noo imaaday meeshan keenay adeegyadooda muddo badan maadaama la soo shaqeynay mid kasta waxaan si toos ama dadba ugu qasbaynay inay shaqaale Soomaaliya hay'ad gareystaan hay'adaha aad ku soo laabta ka qayb gala bandhigyadeenu mid kasta 2 ama 3 shaqaale oo Soomaali u leeyahay marka waa xiriir isku dheelitiran meel kasta kama qaadan adeegyada kaliya annagana waxaan siinaa xirfadlayaal Soomaali ah taasoo kor u qaadaysa dhaqaalaha naga iyo mataqaana iyo karaamada Soomaalida ma sha Allah waxaan arkayay dhalinyaro fara badan oo aad u helayay adeegyo fara badan oo kamid ahaayeen abaalmarino sida gift cardska iyo waxyaabo noocaas oo maaragtay runtii aad ugu deeqday bal ka war arinta waxa waaye sanadkan waliba shaqaalihii hore
qabanqaabin jiray bandhigan oo kale way badnaayeen hadda hal shaqaale nasra hogaaminaysay intanada kale support baan u ahayn laakiin marka volunteer badan baa community-ga nooga yimid dhalinyaro sportska ay ka mid tahay iyo dhalinyaro kale walaalaheen oo dhalinyaro magaalada ku cusub marka in mataqaanaa soo dhaweyn fiican la siiyo ayakii laga warhaayo waxaan la socdaa saaxiibo badan oo shaqada saaxiibo ku nahay inay Soomaalida madaxdeeda meel kasta joogaan in waan ka warhaynaa dadkanaga nin kastana wixii waan awoodnaa u sameynaa marka hay-adaha naga soo gaaray hay-adaha kale saaxiibadan nahay ayaan u gudbinay walaalaha noo yimid cusub kuwa kale dhalinyaradan ayagana tababar bay u tahay oo kuwa sportska kale in mataqaanaa bulshada u adeegaan tusaale qurux badan Nasra oo maanta xaflad macnaha soo qaban qaabis hawshan oo dhan 2 sano ka hor 2020 bay ahayd waxay volunteer iga ahayd adeeg ilkaha maranka ee masaajidka Al-Nur baa ugu horeysay soo dhex gashay haddana waxa waaye waa hogaamiye ayadaa mataqaanaa u madax bannaan in la hogaamiyo lagu magacaabo marka sida qaabka Somali Health Board bulshada u kobciso oo aad ugu faano waxay tahay dadka kobaca xagga maskaxeed iyo hogaaminta oo gabdhaha iyo rag iyo dumarba ay bulshada macnaha shaqaalaha nagu leeyihiin ما شاء الله aad baan idinku bogaadinaynaa waxaan arkayay waqtiga nasiib inaad u sameyseen oo dad fara badan hooyooyin fara badan aad ugu faraxsanaayeen bal ka waran sanadkan waa ma sha Allah wax marka waa soo jiidashada ka mid tahay waan ognahay hadda meeshan taagan anaxda qorraxda ay haysta qorraxdu maanta aad bay u kulushahay waa yeel baa imaanaya hooyooyin baa imaanaya carruurtii baa imaanaysa soo marka waqtiga nasiibka iyo waxyaalahaas iyadoo lagu xogaa lagu qurxiyay eventiga lagu qurxiyay soo jiidashada especially maadaama ay hadda xilli summer lagu jiro iskuulaadka xiran yihiin waxaan mataqaanaa waxa imaaday ciyaal badan familyo badan oo ciyaalkooda keensaday ice cream kay jecel yihiin waxaan u soo gadnay ice cream xataa waxaan laga soo gaday ganacsi Soomaaliyeed hooyo ice cream baa la yiraahdaa meel kasta oo Soomaali joogto ku aragteen ayakii waa marka ice cream ka dalmo u keenay ciyaalka si ay u qaataan dadkii waaweynaa adeegyadii caafimaadka maahan ayakana biyo iyo nafaqeyn kale ayaa loo keenay aduu ilaahay yiraahdo marka waxaan isku daynaa wixii hadba tabartanada inaan ka geysano qaasatan hadda maadaama laga soo baxay COVID-19 dhaqaale burburka ku yimid bulshooyinka annagoo kale ah weli aad u baahsan yahay markaas waxaan isku daynaa wixii aan awoodno inaan ku soo kordhino ما شاء الله aad iyo aad baa u mahadsantahay maxamed xasan shidane runtii adeega aad bulshada u haysaan waan idinku bogaadinaynaa waxaanan runtii maaragtay rabnaa bulshada Soomaaliyeed ee Somali Bridge TV ku xiran inay ogaadaan mar walba adeega aad bulshada u haysiin gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan Kinkan iyo guud ahaanba caalamka oo idil oo runtii barnaamijyadiina laga daawado meel walba marka aad baan idinku bogaadinaynaa ma santaa Cabdiraxmaan mana rabo dadka garanaya labada isku garanay inaan saaxiibana hol ogaa laakiin waxaan rabaa inaan diyaarada saaro sawirada quruxda badan ee Somali Bridge ka gudbiso bulshadanada waa waxaan aad ugu bogaadinay tusaale ahaan 3 sano 4 sano ka hor hadaad ku qorto Google-ka Soomaali waxa ku soo bixi jiray burcad badeed ma Soomaali isqarxinaya laakiin hay'adaha waliba aad ku xirfadda heerka sareeya si Somali Bridge oo kale sawirada ka duwan ay bixiyeen guusha Soomaalida soo tabiyaan waxa macnaha maskaxiyan xataa bulshadu u dhisaysa oo mataqaanaa annagii baa inaa karaameys sharaftana soo noqonaysa marka idinkana aad baan kugu bogaadinay walaalka ma santahay aad iyo aad ma sha Allah sidaan aad baa u mahadsantahay walaalkay